السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. marka koowaad iyo marka labaad iyo marka saddexaad inta waxaan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan dadka Soomaaliyeed ee dawlad deegaanka ku nool ama dibadahaba ku nool inta ka bacdi waxa weeye waxaan rabaa inaan wax yar ka hadlo arintaas oo ku saabsan dadka xidhan ku xidhan Soomaaliyeed ee ku xidhan magaalada madaxda Addis Ababa ee dawladda Itoobiya waxa weeye markii sida dhabta loo hadlo anagu horta waxaanu nahay eheliyadii dadkaas baan ka nahay oo ka soo jeednaa hadda ka horna ma ayna dhicin intaan saxaafad iyo nimaadno inaanu ka hadalno muddada 4 sano ay xidhnayeen waxaanu la tacaalaynay oo kaliya oo quudintooda iyo maaragtay iyaga oo maaragtay wixii ay xabsi ahaanta ugu baahan yihiin saan uga gargaar lahayn laakiin ma ayna dhicin in aanu la hadalno dawlad inaan la hadalno shacab weyne inaan la hadalno hadda ka hor horta ma ayna dhicin haddaba maanta waxaan ugu kalifay inaanu saxaafad intaan nimaadno aanu ka hadalno markii cafis guud Itoobiya oo dhan uu ka dhacay ee la sii daayay sabaad ninkii TPLF-ta aasaasay iyo madaxweynihii baalkii Tigray iyo Jowhar iyo Iskandar Naga oo ahaa ninkii gubay 50 iyo samti masaajid in ka badan gubay oo la sii daayay markaanu aragnay damiirkanagu wuu joogsan waayay in aanu aamusnana wayna qancin weyday waxaan noqonnay dad buka oo si caadi u buka haddaba waxaan rabnaa inaan la hadalno dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan hogaamiyaasha beelaha Soomaaliyeed hadday tahay Samaroon hadday tahay Isaaq hadday tahay Gurgura hadday tahay Ciise hadday tahay haddii ay tahay maaragtay Gurre Gariire Absame Geri cid walba oo Soomaaliyeed waan la hadlaynaa waxaan ka codsanaynaa madax dhaqameedyada sida garaadka Absame suldaanka guud garaad kulmiye suldaanka guud suldaan Cabdiraxmaan Bade ugaaska guud ee maaragtay beesha Ciise ugaas Mustafa iyo ugaaska beesha Akise suldaan Muxyidiin Odawa ugaaska beesha maaragtay baalkii Samaroon ugaas Cabdiweli iyo kuwa kale ee magacyadooda hadda aan meeshan ku soo koobin dhamaantood waxaan ka codsanaynaa in Soomaalida takoorka la takooray ee cafiska guud ee Itoobiya oo dhan ka dhacay laga reebay in ay ka danqadaan wiilasha meesha ku xidhan ugaasye u yihiin suldaanay u yihiin malaaqiye u yihiin aad iyo aad waxaan uga codsanaynaa inay intay ka hadlaan saxaafadda ka hadlaan ra'iisul wasaaraha la hadlaan dawlad deegaanka la hadlaan madaxdooda waxa weeye iyadoo oo ayna jirin micnaha wax dhibaato iyo wax cidna loo geysanayo haddana wixii xaq ay wiilasha ay ugaasyada iyo suldaanada iyo malaaqyada ay u yihiin ee xidhan ee cafiska guud ee Itoobiya oo dhan ka dhacay laga takooray waxaan ka codsanaynaa inay ka hadlaan aad iyo aad baan taa uga codsanaynaa ta kale kalena iyadana ka codsanayna dawlad deegaanka mas'uuliyiintooda waxa weeye horta kursiga maalinba nin baa jooga shalay Cabdi Maxamuud baa joogay maanta Mustafa Cumar baa jooga Mustafa Cumar
waa dadka uu madaxda u yahay iyo ka mid yihiin maanta ee inuu caawiyo uu xil ka saaran yahay dhammaantood iyadana waxaan ka codsanaynaa inay dadkaas sidii ay u caawin lahaayeen ee cafiska loogu dari lahaa inay ka shaqeeyaan dowladda federaalka ra'iisul wasaaraha iyo hogaamintiisa BB-da waxa weeyaan maxaabiista ay cafiska siiyeen ee ay sii daayeen Ethiopian maxaabiisan baa la sii weydiinayay marka kuwa Soomaalidu goorma la yiri Soomaalidu Ethiopian ma aha haddii ay tahay Soomaalidu Ethiopian ma aha hana loo cadeeyo haddii kale xaq waxaan u leeyihiin in cafiska lagu daro oo la soo daayo waxaan ka codsanaynaa iyagana inay maxaabiistaa soo daayaan waxaan rabaa inaan in yar ku xuso halkan Cabdi Maxamuud iyo dhalinyarada kale la xidhan ugu yaraan 30 jeer maxkamad waa la geeyay mana ayna dhicin weligood in maxkamadaas la weydiiyo su'aal ah August 4 wax ka horeeyay dambi abaad samayseen weligood lama weydiin August 4 iyo wixii ka dambeeyay in baan wax laga weydiinayo August 4 wixii ka horeeyay waxba lama weydiin marka Soomaalida waxaan rabaa inaan u cadeeyo bal horta Soomaaliyay haddii aad u maleynaysaan Cabdi Maxamuud dad Soomaali ah yuu wax gaarsiin inuu u xiran yahay wallaahi billaahi tallaahi waan idin dhaartay inaan weligii la weydiinin August 4 wax ka horeeyay oo dambi aad samaysay haddii August 4 wixii ka dambeeyana maxbuus buu ahaaba oo xilba muusahayn marka Soomaalida hadday wax tabanayso oo cid wax ka tabanaysa ay jirto horta bal waxaad ogaataan August 4 wax ka horeeyay ama 4 bishii 8aad wixii ka horeeyay maalintii ay ka dhacday jigjiga ay qolobtu ka dhacday wax ka horeeyay Cabdi weligii su'aal lama weydiin dambigaas samaysay waxaan aad uga xunahay in la sii daayo iskandarnaga oo xagtir ahmaar ah oo 150 in ka badan oo masaajid gubay oo Addis-Ababa ka gubay Baxardaarna ka gubay Cabdina maalin kasta oo maxkamadda la geeyay leeyahay laba kaniisadood baad gubtay bal iska daayo Cabdi hadii taa loo haysto wiilka 14 jirka ee isagoo qaangaan meesha fadhiya isagu bal muxuu sameeyay 13 jir buu ahaa 13 jir buu ahaa habeen baa intii magaalada laga dafay la geeyay waxa weeyaan dad badan oo hogaamin ahayn oo maamul ahayn yaa xidhan marka si guud waxaan cabasho ugu soo jeedinaynaa qof kasta oo Soomaali ah meel kasta oo uu joogo in uu ka danqado kana hadlo problem kana hadlo sababta keentay in la takooro maxaabiistii Soomaalida ahay intii afis guud Ethiopia oo dhan u ka dhaco oo iskandarnaga la sii daayo oo la sii daayay Jawhar Maxamed oo la sii daayay bahalkii Jawhar Maxamed hal maalin oo hadlay baa 500 oo qof dhimatay one day oo hadlay nimanka Tigreega bahalka waa nimankii Ethiopia ay dambi u haysatay ay lahaayeen iyo gacmaha dhiig kula jira oo xabad ridayaanu qabanay ay lahaayeen oo intaas qof bay dileen ay lahaayeen kuwii sii daayeen marka annaga waxa aan ka hadlayno maanta waa cabashada guud qof kasta oo Soomaaliya oo damiir lehna waa waxay u taala wax annaga nagu gaar ah xitaa maaha waa qofkii damiir leh marka waxaan ka codsanaynaa hogaaminta in ay arinta ka hadlaan lana hadlaan dawladdeeyaanka federaalka la hadlaan cid kasta oo maaragtay caqabad ku ah in ay maxaabiistaas ku hadha meesha in intay la hadlaan si maslaxad iyo Soomaalinimo iyo wanaaga iyagoo u marahaya in maaragtay arinta loo kaco anoo codsigaygu intaasaan maaragtay ku soo gudbinayaa intaasaan maaragtay bulshooyinka Soomaaliyeed u gudbinayaa dawladda deegaanka intaasaan u gudbinayaa dawladda federaalkana intaasaan u gudbinayaa
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.